kulan wacan oo wanaagsan waa barnaamijkii barbaarta iyo beeraha taxanihiisa gugan geeda qaadis ilaa goosasho abuurka ayaan maanta ku eegaynaa waxaa marti ku ah Professor Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale oo ka mid ah khubarada farakutiriska ah ee bartay cilmiga plant breeding-ka dhir fara badan oo ku magacaaban Soomaaliya geedka Soomaaliya ka yimid yani ayaa lagu baraa dibadaha ardayda beeraha barata marka breeding-kuna waa la mid yani wuxuu la mid yahay in loo sameeyo xarumo kala duwan bilmasal sida berigii hore waqtiga Soomaalida ahayd bunkaay meel leeyahay jirto baydhabo ku taalay oo iduna sida baashan filsanta leeyahay Dr. Xuseen Macawiye soo kiriyad gareeyeen waxa kale oo jirtay beerta tijaabada ku taalay iduna afkooye waxa ku taalay aburiin meel leeyahay jirto Hargeysa 25 kiiloomitir jirto iduna lagu tijaabin jiray sorghumka ayadana lagu tijaabin jiray inta badan ciirgaabo sidaas leegsanaad waxa xoog lagu tijaabin jiray bataatada baradhada ayadana lagu tijaabin jiray waa in kuwii inta dib loo soo celiyo caalam casrigan maanta qalabkan casriga iyo cilmigan casriga lagu wado bay noqonaysaa Professor Ducaale waxa uu shahaadada bachelorka ka qaatay jaamacadda Cluj-Napoca oo ku taal Romania waa double master oo mid uu agronomy yahay kana qaatay jaamacadda Cluj University oo ku taal Romania masterka labaad waxa uu ku diyaariyay jaamacad ku taal Norway oo la yiraahdo Oos University isagoona takhasuska masterka labaad ka diyaariyay soil water and plant relations shahaadada PhD-gana waxa uu tagay dalka Romania jaamacadda Cluj-Napoca University isagoo ka diyaariyay takhasuska plant breeding ku soo dhawaada barnaamijka barbaarta iyo beeraha balame barbaare biyo wal hele ambaxne badarki abuurne berihi anfalne beeralayda roofalatada ah ee wax soo saarkoodu ku xiran yahay roobka iyo kuwa gacan waraabka ah ee haysta wabiyada Shabeelle iyo Jubba ayaa gugan mar kale u dareeray abuurashada ciidda qaar yaanba ayay ku abuureen ka hor da'mada cirka kuwa kale ayaa miigeeyay markii uu roobku biyo dhigay abuurku waa kan la duugo marka uu bislaadana carabka la saarto saddex shay oo muhiim ah ayay inintu ka samaysan tahay oo kala ah uurku jirta ama embryoga shayga labaad ee ininta ka samaysan tahay waa maada cunada ininta ku kaysan tahay marka abuurka la duugo oo la waraabiyo hawo ama oxygen hesho oo ay soo dhalanayso cunno ma samaysanaysa xilliga waayo ilayskii ayaan jirin oo mugdi ay ku jirtaa cunadii ku kaysanayd ininta ay isticmaalaysaa oo loo yaqaano endosperm waxa saddexeeya qulaaf adag oo ininta ku hareeraysan oo ka difaacaysa cimilada iyo inuu dilaac ku yimaado waayo gudaha waxa ku jira uurku jirti seed waa erey qalaad oo waxa weeye exactly erey qalaad weeye oo waliba la oran karo waa scientific buu ka soo jeedaa magacaasi af Soomaaligu alxamdulillah rabbil caalamiin waa ballaaran inta say anigu aan garanayo abuur waxaan u qiinay inina waa la yiraahdaa abuurna waa la yiraahdaa firina waa la yiraahdaa saddexda magacba waan ku soo bartay anigu laakiin ka ugu haboon ee aad soo kartaa waxa weeye waa abuur waayo abuur meesha waxaad ka dareemaysaa wax la sameeyay macnaha abuur waxa loo yiri marka waxa weeye halku geedku ka sameysmay weeye halkii geedku ka bilaamay geed ku noqoni weeye marka yare ee abuurka yare markuu helo conditionkii ama environmentkii ku haboonaa ayuu hurdada ka toosaya embryogi ubacdii ama se ayuu hurdada ka toosaya dad markaas uu bilaabaya inuu degeed noqdo وسد لوس كوا كاركتين لوس كمركا لبض لوكال تشبيو وحيرة هل دينا لبض دينا يدلعون اندسبرمه أي ندان اندسبرمه قتل دونس كان وحن كتير اندسبرمه أما سوي حوي هالكي بركة اللي قدي جيا مد نوتريشن كتير نفقة ذي كتير تويها مركا وحيرة هالكا كل لرن أما كل دكسن أيام ليدا هذا إمبريو أفريقيا لاد الصومالي جنا وبعض ليدا وبعضنا هو هالك أبور كان نقونيسي جيت كسو سارسيها caalamka dal aan abuur lahayn ma jiro waliba khubaro dhinaca tayeynta abuurka ah ayaa ka fariista si ay u soo saaraan abuur ka bixi kara oo wax soo saarna ku yeelan kara cimilada wadankaasi Soomaaliya berigii ay jirtay dawladii dhexe sidaasi si leeg
khubro ku takhasustay horumarinta ama breedingka ayaa soo saari jiray abuur ka bixi kara dalka oo welibana wax soo saar leh. abuurka galleyda ayaa ka mid ahaa abuuradii horumarinta lagu sameeyey iyadoo la adeegsanaya nuuc abuur oo laga keenay Tanzania iyo mid Soomaaliya ay lahayd. waa la isku faxliyey nuuc cusub ayaa ka soo baxay oo loo bixiyey Samtekis. wax soo saar fiican ayuu lahaa beri hore muddo 20 sano iyo ka badan kadib abuurkii galley ee Samtekis wax soo saarkii uu lahaa berigaas lagama goosto. Professor Ducaale ayaa sharaxaya muhiimadda abuurku u leeyahay. abuurku xaqiiqda marka loo hadlo waxa weeye abuurku waa shay ka qaalisan dahabka iyo diamondka halka la dhigo meel ka adag baa abuurka la dhigaa. waayo dahabka lama cuno, dahab cuni meesha ku baahi bixi meesha inaad iib geysid weeye. laakiin abuurka marka wad cunaysaa isaga wad beer ku bixi wad cuni. abuurku yani wuxuu inaga muhiim inoogu yahay haddii abuurka laga weeraro oo abuuran kaaga ahaan lagugu soo daayo abuurkaas wuxuu imanayaa ka dalkaagii aan ahay waxa laga yaabaa inuu xanuuno badan oo cudurro badan leh inay ku abuuraan oo gaarsiiyaan dhirtii kale ama carradii soilkii gaarsiiyaan. taasina waxay u baahnanaysaa dawlad xoog leh iyo kharashaad far badan oo 10 sano in la dagaalamay noqonaysa. marka abuurku ummad walba abuurka way ilaashataa. ummadda Soomaaliyeed laakiin nasiib darrada maanta jirta waxa weeye meel ugu keedsan yahay abuur ma jiro. wax shisheeye inoo hayaan oo gacanta ku hayaan in laguma talageli karo lama oran karo waa abuurkii saxda ahaa kii runta ahaa ay Soomaaliya lahayd lama oran karo. waa waxaan maanta taasi jirin laakiin waxa xaqiiqo noqon karta haddii dadku ay fikiraan oo ay isku tashadaan iyagu oo dadkooda aqoonta leh iyo dadkooda magaranaysaa ay ka goodo taladu ay wadaagaan waa la samayn karaa abuur ku habboon deegaanada ay Soomaalidu leeyihiin oo kala duwan. haddii abuurka laga baabiyo waxa laga baabiyay macnaha beertii aynu ka hadlaynay lagu baahi bixi lahaa baaba'aysa. abuur la'aani waa beer la'aan weeye, beer la'aan waa baahi baa jiraysa weeye. Professor Ducaale waxa kale oo aan weydiiyay ahdaafta keenaysa in la tayeeyo abuurka sidan ayuuna ku jawaabay. tayeynta abuurku had iyo jeer waxa weeye wad la socotaa maanta dalkeena cid controlsha ma jirto waxyaabahan GM ka leeyahay ama gene manipulation ama بالمثل asalka geedka seedka la bedelay seedka asalka geedka la bedelay inagu cid control shamilayn mana kala naqaan inuu kii saxda yahay iyo inuu kii kale yahay. laakiin sideedaba haddii lagu fikiro oo ummadda ku fikirto seedka waxa mar walba barbar socda imika tusaale ahaan waa dalkeena alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay wuxuu siiyay cimilooyin aad kala duwan buu siiyay oo waxaanu leenahay zero levelkii ilaa 360 mitir بالمثل دالو السناق ريجن ودول هايلاندسو ادو سريوي انت u dhaxayso dhanba hadii aad eegtaan geographiga dalkeena waxaad arkaysaan ama ecological dhinaca agriculture ka fiirisaan waxaad arkaysaan inay kala duwan yihiin cimilooyinkii dhirtuna waxay kala xiiseeyaan cimilooyinkii sida awgeed ba waxaan u baahanay بالمثل seedka levelka ama cabirka badda agteeda sida tusaale ahaan shabeellada hoose soo qaadeen oo kale waa lowlandis dhul hooseeya weeye temperature-kuna waa high inta badan marka waa inaan helnaa dhir adapt garaysa ama qabatinta oo xamili karta had iyo jeer kulaylka halka ka jira iyo hawada kulul. marka tayeyntu waxa weeye waxa laga fikirayaa siirka ka baxay bocorka ka bixi kara ma jawhar ama aan idhaahdo shabeellada hoose tusaale ahaan marka meesha la yiraahdo channel area waxaan u baahanahay marka laynoo keeno mid leeyahay nutrition values ayaa high ah ayaa laynoo keenaya dalkeena nafaqada ku jirtay baa sarreysa tusaale ahaan baa lagu leeyahay laakiin climate-kii lama qabsanayo. marka qoladan breeding waxay inta badan ka shaqeeyaan waxa lagu cross gareynaya ama lagu talaalaya kii localkii dabadeedna muddo qaadanaya ilaa inta ay ka soo baxayso abuurkii saxda ahaa ee ku habboona deegaankeena. marka tayeyntu waxa weeye mar nafaqada ay hooseyso oo la rabo gene-kan sababaya proteinka جين sababay borotiinka si loo active gareeyo oo macnaha loo koriyo oo yani mariyaha soo saareysay aanad marnaba ka fikirin borotiinkooda hooseeyo. marka tayeyntu waxa weeye mar nafaqadii lagu tala galay iyo mar la rabo kulayluhu markuu jiro inay ku bixi karaan resistant uu noqdo kulaylkii iyo mar la rabo roob yaraanta markay biyuhu yar yihiin in lagu tayeeyo oo noqdo mid adkeysan kara biyihii. hektarro kiiba 16 jibaal yahay oo shidaal lagu waraabiyay shaqaalaha iyo shaahu u dheer yahay marka goosashada la gaaro uu ka soo baxo wax soo saar caata ah
waxaa marka dhinaca abuurka aan ka fiirino sabab u ah in inta la duuganayo oo aan muddo horumarin lagu samayn si abuur wax soo saar wanaagsan yeesha loo helo. Brofesor Ducaale waxa uu soo jeediyey in marka hore dib loo soo celiyo xarumihii cilmi baariseed ee tijaabada iyo horumarinta ku samayn jiray abuurka ee ku yaalay gobolada dalka. waxyaabo badan baan oran karnaa way sababayaan maxsuulka hooseeya ee dalkeena. mid waa koowii horta waxa weeye adduunka rag baa ku nool oo ragga ku noolna waxa weeye nin walba wuxuu jecel yahay inaad u noqoto market isaga suuqa inaad u noqotid. oo iminka bariiska tusaale ahaan Pakistan iyo India laynooga keenayo dadkeena haddii la fahansiiyo inay tujaarteenu ay maal gashadaan tusaale ahaan balcad iyo jawhar oo kale iyo daafkooyi iyo qalaaliyo iyo jilib ay maal gashadaan dadka degan oo ay yiraahdaan noo beer bariiskii bariis tayalana waa la heli shaqaalena waynu heli mid saxalana uu noqonayaa oo de waxaan dhacay India Pakistan laynooga keenayo noqon maayo waliba haddii la doono hoose quality-goodii. marka haddii ay soo baxaan dad Soomaaliyeed oo talada dalka gacanta ku haya si doonanba marka halkay doonaan baa ka soo jeedaan dad talada dalka gacanta ku haya oo ku fikiraya dhulkan Ilaahay inama kansiye rabbigeen inaga inasiye kuwan beerihii in laga faa'iideysto oo dadka kor loo qaado macna la dhiirigeliyo beeraleyda iyo dadka aqoonta beeraha leh oo dabadeedna la target gareeyo gobol walba waa inuu isku filnaadaan sanadka degmo walba waa inuu isku filnaataa sanadka tartankaasi markuu yimaado abaalmarina la siinayo ninka maxsuulka badan soo saara hadhow waana laga iibsanayaa gobolada aan waxba beerin ee aan Ilaahay u siinin degaankii beeraha ayaa baahi bixi doona hadhow kan markuu wax badan soo saaro kaasa laga iibinaya hadhow. marka waxa dadka beeraleyda lagu dhiirigelin karaa waxa weeye iyada oo farsamo iyo aqoontii la isla garab taago iyo dhiirigelintii iyo fankii magaranaysa wax ku beerayeen ayaa kor u maxsuulkeenu kor ugu soo kici kara. dhinaca breeding-kana kulli waa dal walba waa leeyahay waa qarsada waliba ummad walba wax sakrad buu yahay khayraadka dabiiciga ee Ilaahay siiyay. tusaale ahaan waxa jira oo hadda dib u eegtaan kutubta waxaad arkaysaan dhir fara badan oo ku magacaaban Soomaaliya geedka Soomaaliya geedka Soomaaliya ka yimid yani ayaa lagu baraa dibadaha ardada beeraha barata. marka breeding-kuna waa la mid yani wuxuu la mid yahay in loo sameeyo xarumo kala duwan bil masal sida berigii hore waqtiga Soomaalida ahayd bunkaay meel leeyahay jirto baydhabo ku taalay oo iyaduna sida baashan filsanta leeyahay Dr. Xuseen Macwi soo kiriyad gareeyeen. waxaa kaloo jirtay beertii tijaabada ku taalay iyaduna afgooye waxaa ku taalay aburiin meel leeyahay jirto Hargeysa 25 kiiloomitir jirto iyaduna lagu tijaabin jiray soorgomka iyadana lagu tijaabin jiray inta badan ciirgaabo sidaas leegsanaag waxaa xoog lagu tijaabin jiray bataatada baradhada iyadana lagu tijaabin jiray. waa in kuwii inta dib loo soo celiyo caalam casrigan maanta qalabkan casriga iyo cilmigan casriga lagu wado bay noqonaysaa. marka hore waynu lahaan jirnay dalka burburay iyaguna kamid yihiin. marka breeding-kuna waxa weeye waa qalbiga beeraha weeye. breeding-ku waa halka laga soo saaray abuurkeenu sheegayna xarumaha ka soo baxaan weeye. waa in marka laakiin say jiraan dadka ehelka waxa ay hawshan fulinaayeen. gunaanadkii talooyin wax ku ool ah ayuu soo jeediyey Brofesor Cabdiraxmaan Ducaale oo marti ku ahaa barnaamijkan barbaarta iyo beeraha. waxa horta ugu habboon dadka wax beerta abuurada inta badan ay soo beeranayeen ay hubaan ayaa ku habboon yani kay ku soo beerteen ee u soo baxay ay midhihii ka gurteen ee waxna dhigteen waxna cuneen waxna iibgeeyeen. hadday ka haystaan kaasa ka wanaagsan waxay suuqa ka iibsanayaan ama dibadaha looga keenayo. waayo waxa dibadaha laga keenayo waxa dhici karta inaanu genetically pure line ahayn macnaha inaanu asalkiisu wanaagsaneyn oo GM-ki ku jiro. haddii GM-kaas haddii la socdo marka ay beeraan waxa suurtagal noqdo marka midhaha soo bixiyo in flower-kii markuu samaysmo pollen-kii xasharaadka ay qaadaan dabadeedna ay wada gaarsiiyaan dhir fara badan oo jeeraanka lahaa dabadeedna waxa wada GM noqdaan baa dhici kara. marka taladu waxa weeye wixii hore u beeran jireen hadday haystaan inay kuwa ka sii beeraan. haddii aanu isagu haysanna ha raadiyo oo hab doono ha soo weydiyo saxaabtiisa ilaa iyo jilib eeriyada ka raadiya. taladeedu taa way waayo waxaan maanta suuqa yaala mashar heeduhu inoo keenayaan wax la hubo ma waxaynan taskarayn oo aynaan tijaabin waxaynan garanayn certificate aan wadanin weeye. marka waxaan ku talin lahaa dadka deegaanada Ilaahay beeraha si wax beeraya inay xoog saaraan sidii ay dadka garanayaan wax beertay ee ugu jira siidka haya inay kuwa ka soo qaataan ee ugu wanaagsan.
beeraha waa fildi aad u baaxad weyn oo in la faaqido ay tahay biyo aan laga bixi karin, bad aan xeeb lahayn iyo berri aan laga hoyan karin. waxaanse jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Professor Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale sida uu inooga aqbalay inaan ku casuunay barnaamijkan barbaarta iyo beeraha. taxanaha barnaamijyada Guga geeda qaadis ilaa goosasho oo ah barnaamijkii saddexaad. inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga oo anigoo ah Cabshakuur Ibraahim Cabdi oo idinku dhaafaya nabadgelyo iyo tasho oo tacbo. barqadii la kaco gulaashii la cunaan barani markii meel la dhiso la guurto la buraarugin barqadii la kaco gulaashii la cunaan barani aan barno inaan beer falano aan ku baahi baxnay aan barno inaan beer falano aan ku baahi baxnay